الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta mawduuceenu waxa uu ku saabsan yahay hadaf ama haddii aynu af Soomaaliyeeno ujeedo haddii aynu English ku sheegnana goal ama yool. Marka waxaynu isla fiirin doonaa mawduucaas nolol bilaa hadaf ah waa nolol bilaa micno ah. noloshu waxay u baahan tahay hadaf. bani aadamka iyo xoolaha waxay wadaagaan sifooyin, tilmaamo, astaamo waxay wadaagaan sida wax cunida, hoyga iyo isku baxnaanta jinsiga. waxyaabahaas dhamaantoodu waa ay wadaagaan. marka qofka bani aadamka waxa laga maarmaan u ah in uu dhaafsanaado sifooyinka xayawaanka. bani aadamka waxyaabaha ku khaaska ama ku gaarka waxa ka mid ah fikirka, hadafka iyo qorsheynta. waxa muhiim ah qofka in uu yeesho hadaf ama ujeedo noloshiisa ku saleeyo si uu meel sare u hiigsado. haddii uu sameyn waxa la mid noqonaya xayawaanka. hadafka waa uu qaybo badan yahay. waxaa jira hadaf sanadle, hadaf nololeed iyo hadaf weyn. marka waxaan fiirin doonaa hadafka nolosha iyo hadafka weyn. ilaahay bani aadamka hadafka uu abuuray waa adeecadiisa iyo amarkiisa in la qaato loona hoggaansamo weeye. marka haddaynu nahay muslim, hadafkeenu u weyn waa in aynu raadino raalli ahaanshaha Alle iyo jannadiisa. waxaa kale oo jira hadaf nololeed uu qofka uu in ujeedo ka lahaado nolosha si uu noloshiisa micno u samayso. qofka hadaf la'aan waxa uu la mid yahay qof iska socda. waan iska socdaa, meel aan u socdana ma aqaano. waan iska socdaa, taasi waa waali. laakiin haddii uu qofka ku dhaho waxaan u socdaa Muqdisho ama Hargeysa, waa hadaf macluum ah ama la yaqaano. hadafku wuxuu ku sahlaa inaad bartilmaameed u yeelato oo meesha aad u socoto oo aad taqaanid. waana muhiim inaad taqaanid meesha aad u socoto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.